20 milyan waa 20 milyan ilaa 25,000 iyo 546 maanta waxaa miiska noo saaran coinka bitcoinka ayaa miiska noo saaran. qodobka toddobaad waa technical analysis-ka. technical 9,000 ayuu ahaa. mar kale waxay aaday ilaa 106,000 iyo all time high hadda u dambeeyay oo ahaa 126,000 inay ku dhawaato. mar kale isku soo noqdo wanaagsan saaxiibayaal. maantay waxaan soo jeedi doonaa barnaamijka fursadaha coinska. barnaamijka fursadaha coinska waa barnaamij aan ugu talagalnay in dhalinyaradu ka faa'iideystaan iyo guud ahaanba da' walba oo igu xiran coinska fursadaha maalgashiga leh. maanta waxaa miiska noo saaran coinka bitcoinka ayaa miiska noo saaran. coinka bitcoinka markaan ka hadlayno waa runtii coin aad iyo aad u weyn, coinkii ugu horreeyay ee suuqa marka laga hadlayo, balse waxaan tilmaami doonaa fursadaha iyo maaragtay qaabka looga faa'iideysan karo. ila soco, waxaan aadi doonaa qaybta screenka. barnaamijkan waxaa soo jeedi doonaa anigoo ah Cabdiraxmaan Madaale. fadlan muuqaalka like saar, YouTube-ka subscribe leh, asxaabtana la wadaag. barnaamijkan aan ka hadlayno waxyaabo badan ayaan ka fiiri doonaa. qodobka koowaad ee aan ka fiiri doono waxaa waaye waxa la yiraahdo market cap and ranking. market cap and ranking-ka waxaa waaye market cap-ka waa lacagta ku jirta coinka. ranking-ka waxaa waaye kaalinta ama kala sarreynta heerka uu ka joogo. aan isla tagno coin market cap. coin market cap. coin market cap isla tagno. coin market cap markaa tagno sidan buu noogu soo baxayaa. coin market cap-ka gudaha usoo galnay. coinka marka BTC-da waa kana oo qiimo ahaan wuxuu maraa 81,692 ayuu maraa. marka laga hadlayo marka market cap-ka waxaan u jeednaa coinkan inay ku jirto 1.6 trillion. runtii lacag aad iyo aad fara badan waaye. waa coinka ugu lacagta badan market cap ahaan marka laga hadlayo. price ahaanna waa coinka ugu qiimaha badan. okay, ranking markaan ka hadlayno kala sarreynta wuxuu ku jiraa kaalinta koobaad ayuu ku jiraa oo waa kana meesha hashtag aan ku calaamadeeyay. sidoo kale haddii aan kusoo laabano presentationkeena waxyaabaha marka arno muhiimka ah, coinka marka ma large cap miya, middle cap miya, low cap miya? waa large cap. marka large cap waxa waaye maadaama coinkan ay lacag fara badan oo ku jirto 1.6 trillion ah, waa large cap waaye. okay, coinka haddii uu yahay large cap ama middle cap ama low cap waa kala duwan yihiin oo riskiga maaragtay markii laga hadlayo coinanka large cap-ka ah coinan aad iyo aad u dhacta maahan. middle cap-kan waxaa waaye 50-50 waaye. low cap-kan ayaga ugu daasho badan markii laga hadlayo. dhinaca kicitaankana waa sidoo kale, kan baa ugu orod badan, kana ku xiga, kana kusii xiga. okay, qodobka labaad ee muhiimka aan ka fiirinayno waxaa waaye waxa la yihahdo utility ama use case. waxa la yihahdo utility-ga ama use case-ka marka laga hadlayo waa isticmaalka coinkan shaqadu qabana waa maxay, maxaase loo isticmaalaa. midda ugu weyn waa markaan ka hadlayno isticmaalka ama utility-ga waxyaabaha aan diiradda saarayno waxaa ka mid ah qaybtan haddaan macluumaadka aan tagno qaybta website-ka kale ama white paper-ka website-ka aan tagno. okay, caadiyan horta marka bitcoin-ka inay tahay nooc cusub oo lacag bixin horta inay tahay. markii lagu leeyahay waa nooc cusub oo lacag bixin waxaa loo jeedaa yacni waagi ay soo baxaysay sida adduunka uu ahaa 2008-kii ayaan ka hadlaynaa iyo maanta sida uu yahay waa kala duwan tahay oo xilligaas lacag digital ah oo decentralized ma jirin ee loo jeedaa. marka sideedaba xilligaas markay soo baxaysay waxay ahayd nooc cusub oo lacag bixin ay ahayd. okay, utility-ga marka ugu weyn marka laga hadlayo waa peer to peer technology. yani markii laga hadlayo service-ka bitcoin-ka bixinayso waa B2B, peer to peer service, oo transactions-ka dhacaya ama macaamilada ay dadka sameynayaan ma ahan wax loo dhaxeeyo, ma ahan, waa direct transaction. waa gacan saddexaad ama third party wax ma jiraan. okay, waxyaabaha marka
يعني waa sababta maaragtay aysan wax oo maaragtay central u lahayn maaragtay bangiyadii ama loo manage garaynaynin transactionskii waxyaabahaas oo dhan ayaa maaragtay xoog loo heli doonaa. Sidoo kale bitcoin-ka waa open source. Open source waa il furan oo wax walba oo ka dhexdhexaaya wax la arki karo waay. Marka caadiyan waa maaragtay qodob kale ugu weyn waxaa waaye bitcoin-ka waxaa waaye waa store value waay. Store value marka laga hadlaayo waa in ay dadku ay maaragtay ay kaydsadaan. Markii store value laga hadlaayo waxaa waaye dhinaca maaragtay dahabka kale dadka sida ay isticmaalka uga caraan dahabka kaydsadaan. Marka cryptona waa la mid bitcoin-ka waa la mid oo markii dadku ay qalqal iyo sicir barar iyo wax dareemaan halkaas ay ku kaydsadaan. Marka use case-ka ama utility weyn waa midkaas. qodobka noo xiga waxaa waaye maaragtay coin-ka marka hype miya mise waa xal. hype-ku waxaa waaye buunbuunin, yani kasoo qaad coin aan project lahayn maaragtay utility lahayn use case lahayn meme coins oo kale oo la iska buunbuuninayo macnaha oo hype loo sameynayo. Marka bitcoin-ku hype ma ahna waa xal oo wuxuu xalinayo waa aragnay. qodobka saddexaad waxa la yiraahdo tokenomics aan ka fiiri doonaa. Marka tokenomics waxa waaye qaabka supply-ga maaragtay uu dhisan yahay coin-ka waay. waxaan fiiri doonaa maximum supply-ga, total supply-ga, circulating supply-ga ayaan fiiri doonaa. aan ku soo laabano coin market cap. ugu horeyn markaan ka hadlayno total supply maximum supply-ga haddaan fiirino bitcoin-ka, maximum supply-ga bitcoin-ka guud ahaan waa 21 milyan waay. waa limited supply waay, waa miro xadidan oo 21kaas hal xabo xitaa kuma darsoomayso. total supply markii laga hadlaayo waxaa waaye asna waa 20 milyan waay. 20 milyan ilaa 25,000 iyo 546 xabo sida tirada hoose kaga muuqato. tiradan hoose sida kaga muuqato macnaheedu waxaa waaye marka wax ka yar 1 milyan ayaa banaanka ku maqan. circulating aan ka hadlayno waa isla tiradii oo wax maaragtay extra ah totalka ma yaalaan. marka sidaa daraaddeed wax maaragtay laga cabsi qabo oo maaragtay lagu soo deehayo tiro badan ma jirto oo bitcoin-ka asaga ciriir ku jiraba supply-ga overka wada marka la soo saaro. okay dhinaca marka supply-ga runtii ciriir fara badan baa ka jira. qodobka afraad waxaa waaye coin history. coin history waxaa waaye taariikhda coin-kan goorma soo baxay, qiimuhu ku soo galay, all time lowies muxuu ahaa, all time highs muxuu ahaa, qaybtaas oo dhan ayaa laga fiiriyaa. haddaan fiirino marka bitcoin-ka jaartigeeda oo kale okay jaartigeeda haddaan fiirino haddii aan fiirino marka qiimihii ay kusoo gashay suuqa waxaan u jeednaa inay kusoo gashay price marka laga hadlaayo $6.9 ilaa $4.9 ayuu sheegaa. waana xilliga bishii saddexaad 16 2012 ayuu noo sheegayaa daytada website-ka CoinMarketCap-ka taala. runtii xilliyadaas waa xilliyada uu soo shacbaxayo maaragtay website-kan waana xilligii ugu horreeyay oo taariikhdan uu qabto waay. balse ka hor bitcoin-ka dexiga wallet-yada ayaa lagu haystay. marka $4.9 baan ka soo qaadno waa all time low-gii meelaha ugu hooseysa waay. all time high-gii ugu horreysay 16,000 ayaa ku samaysay 2017. all time high ku sii xigay waxay ku samaysay 55,000 2020. 55,000 mar kale all time high ku xigay waa 56,000 ayay ku samaysay 56,000 meelahaas ilaa 63,000. all time high-ga xigay haddii aan fiirino
waxay ku samaysay ilaa iyo 63 meelahaas ay ku samaysay kadib suuqa waa daatay oo maaragtay nagasti waa 16 ay tagtay 2020 dhaqaaqii xigay haddana wuxuu ahaa 69 ayuu ahaa mar kale waxay aaday ilaa iyo 106 iyo all time high hadda u dambeeyay oo ahaa 126 inay ku dhawaatay waxyaabaha dhan marka waa history coin-ka waa qodobka shanaad coin news marka laga hadlayo waxaa ka fiirinaysaa runtii partnership-ka waxyaabaha uu coin-ka maaragtay soo kordhiyey waa shaqeynada uu maaragtay la yeeshay tiimka kale listingka markii laga hadlayo Binance ama Coinbase ama Getayu oo kale in maaragtay soo listing garay doono kuwan waa kuwa cusub oo kale ama suuqyada exchange-yada ku yar oo hal exchange ama laba exchange yaalo kale waxaa ka fiirinaysaa oo kale update-ka macluumaadka ka soo baxaya coin-kaas ka fiirinaysaa qodobka lixaad waa community and hype bulshada uu leeyahay coin-ka iyo maaragtay sida loo bunbuuninayo macnaha waa muhiim ayadana markii laga hadlayo community-ga bulshada ku xiran coin-kan ma aaminsan yihiin ma ka dambeeyaan ma la dhacsan yihiin waa ka fiirisaa sidoo kale markii laga hadlayo hype-ka X oo la hor jira Twitter Telegram-ka Discord activity waxyaabahaas dhan waa inaad fiirisaa dhaqdhaqaaqa ka socda ee taageerayaasha sameeya waa inaad fahantaa qodobka toddobaad waa technical analysis marka laga hadlayo runtii waa meesha ugu muhiimsan waay marka waxaan ka fiiri doonaa support and resistance-ga trend marka laga hadlayo uptrend downtrend indicators marka laga hadlayo ayadana waxa waaye waa fiiri doonaa RSI-ga support oversold ayaan ka fiiri doonaa moving average-ka isagana EMA-ga ka fiiri doonaa maaragtay inuu support ku yahay cross uu sameynayo golden cross sameynayo mise death cross ayuu sameynayo waxyaalahaas oo dhan inaan fiirino ayadana waa muhiim marka aan tagno qaybta technical-ka website-ka gudaha usoo galnay waxyaabihii hore aan iska dalayno okay weekly oo kale aan tagno hadda waxaan u jeednaa in coin-ku uu uptrend yahay oo runtii xiliyadan oo dhan oo ku soo jiray ilaa iyo all time high-giisa ilaa iyo markuu tagayay 59,000 uu tagayay inuu ku jiray downtrend dhan 52% inuu ku jiray ilaa 53 ayuu ku dhowdahay runtii hadda waxaa u malaysaa in coin-ku uu jihaystay oo xoogaa dhaqaaq yar uu sameeyey markii laga soo dhaqaajiyo ilaa iyo 32% oo dhaqaaq ah inuu sameeyey ayaan u jeednaa okay haddii aan fiirino marka support-ka coin-ka iyo meelaha maaragtay aadka loogu taageeri doono kale waxaan u jeednaa in coin-ka support-kiisa ugu xoogan uu aggan yaallo oo runtii aad iyo aad looga celiyay rejection fara badan sida ujeeda okay marka hadda resistance ugu dhow coin-kan laga celi karo si guud haddaan fiirino waa aggan meelaha ugu dhow waa 94,000 okay markii aan fiirino dhinaca maaragtay indicators-ka haddaan fiirino oo aan soo daarano dhinaca iyo RSI oo kale RSI-ga haddaan soo daarano waxaan u jeednaa in uu maraayo 50-ga oo uu yahay moderate inuu yahay ama 50 level-ka inuu yahay marka anaga hadda waxaan joognaa weekly daily haddaan tagno wuxuu noo sheegaa 69 ayuu noo sheegaa oo runtii isagana maaragtay level-kan waa cabaar u jira marka wuxuu ku dhow yahay ilaa iyo 70 ayuu ku dhow yahay okay
مسامحها يا ها اوكي marka waxaan u jeednaa in uu maaragtay 69 mar ay daily markaan joogno weekligana waa 50 ayuu garaacayaa oo runtii waa bullish labadaba markaa fiirisid inkastoo maaragtay dhinacan haddii lasoo laabto uu 50 hoos mari karo marka saaxiibayaal si guud technicalka xogaa fursada ka muuqata oo ilaa iyo aagan 94 uu gaari karaa bitcoin-ka dhaaq uu sameyn karaa marka waaweynka asxaabta jeebkooda ka faa'iideystaan risk analysis markaa fiirinayno waxaa muhiim ah inaad iska fiirisid coin-ka waxa la yidhahdo whale manipulationka waxaa waaye dadka jeebooyinta inay ku benguuraan oo suuqa maaragtay inuu daadanayo risk jiro balaaya dhacday maaragtay in laga dhigo dadna waxaa waaye tareenka lagaa tuuro waa inaad iska fiirisaa sidoo kale waa inaad iska ilaalisaa waxa loo yaqaano regulation risk waxaa waaye tusaale ahaan coin-ka aad maalgashi ka sameynaysid in wadamada awoodda leh mid ka mid ah oo shuruuc ka soo saaro oo yiraahdo totally waa la diidaba tusaale Mareykanka wuxuu yiri bitcoin-ka kama ogolin inay ka shaqeydo Mareykan ama maaragtay ATM-yada ama connection-ka bangiyada lama isticmaali karo waxyaalahaas ayuu yiri marka waa inaad iska fiirisaa qaybta kale waxaa waaye psychological risk waxa loo yaqaano qaybtan waa qaybta ugu muhiimsan oo haddii suuqu daadasho uu sameeyo kale inaad wax leedahay panic selling inuu ku dhaco oo argagax badan aad sameyso inaad iska ilaaliso oo suuqu uu leeyahay uptrend downtrend range inuu leeyahay inaad ogaato ayana waa muhiim dhinaca marka laga hadlayo security riskiga ayadana waxaa waaye waa qodob muhiim ah walletyada maaragtay exchange-yada la jabsado waxyaabaha noocaasa haddii uu coin-ka ku lug leeyahay exchange ayadana dhibaato u keeni kartaa marka waa inaad iska ilaalisaa qodobka sagaalaad talooyin muhiim waaye talooyinka laga hadlayo waxaa kow ah in aadan maaragtay raacin bumbuuninta waa hype-ka waaye tusaale ahaan coin and utility ama use case wax loo yaqaano aan lahayn in lagu bumbuuniyo oo maaragtay balaayo lagaga dhigo oo lacagtaada meesha geliso iska ilaali coin-ka intaadan maalgashan iska hubi muxuu yahay utility use case ma leeyahay okay hype-ka haddii uu maaragtay hype-ka laga hadlayo waa meesha direction-ka dadka ay jiraan waaye keliya short term uga faa'iideyso lacag kooban oo ka maarmi kartana geli qodobka kale ee muhiimka waxaa waaye inaad sameyso cilmi baaris do your own research meeshaan waxaa waaye meesha qaybta ugu muhiimsan waaye faallada aan coin ka bixiyey micnaheedu ma ahan inaad ku go'aan qaadatid ma ahan muhiimaddu waxaa waaye in adigana aad baaritaan ku gaara aad sameysid oo aniga meelahan wax ka fiiriyey iyo meelo ka fogana ka fiiriso ayadana waa muhiim qodobka saddexaad ee u dambeeya oo aan talahaan ku sii lahaa waa inaad kala duudaa portfolio-da coinanka aad qaadanayso waa inay noqdaan coinan kala jaad ah oo maaragtay category ahaan kala duwan market cap ahaan kala duwan price ahaan kala duwan mar walbana jeebkaaga waa inaad ka fikirtaa adigoo 200 ama 300 ama 500 haysta ha aadin coin $1 $200 $100 ka kacay ha aadin coinanka sentiyada ah oo supply-ga fiican ku sii kara ku soo celi kara aad ma santihiin YouTube-ka subscribe saaro muuqaalka like saar asxaabtada la wadaag waxaan filayaa muuqaalkeena wax badan ka faa'iiday la soco barnaamijyadana kale